dadka ku nool deegaanka Gidhays oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa markii ugu horeysay yeeshay ceel biyood ay dadku biyaha ka dhaansadaan. Haddaba warbixin arrinka ku aadan waxa inoo soo diyaariyay wariyaha RTN ee Cadaado Saxnuun Axmed. deegaankan sanado badan waxaa ka jiray biyo la'aan waxaana ugu darnaa xilliyada abaaraha. Caruurta ayaa ah kuwa ugu nugul oonka iyo cudurrada biyaha ceel gacmeedyada laga qaado. markii ugu horeysay ayay yeelanayaan ceel biyood rasmi ah. waa u barqa farxadeed oo ay oonka ka baxayaan iyaga iyo xoolahoodu. in ka badan nus qarni tuuladan uma aysan helin ceel biyood rasmi ah balse hadda ayay heleen. si dareen leh ayay u mahad celinayaan dadka deegaanka Gidhays ee gobolka Galgaduud. ceelkan markii naloo keenay dad waxaan ahayn 3 sano abaar jooga oon lahayn ceel biyood oo aad iyo aad u dhibaataysan. waxa weeye ceesha annagu aan cabno ceel adiga ilaa 30 sano ka hor la qoday oo ciid ku socoto firadu ku socoto dameeraha qashinku xaarkoodu ku socday ahaayeen. abaarihii markay ka badatana waa ay gureen kisti laga helana waxa weeye waxay sameeyeen cudur yaa ka dilaacay. hay-adan oo lagu magacaabo Turkiya Diyanet Fakhfi ayaa hirgelisay ceel biyoodkan. halkani waa goobta ceel biyoodka uu deegaanku kaga yaalo. saaka waxaa ku sugan la taliyaha dhinaca diinta ee safiirka safaaradda Turkiga ee Soomaaliya Mr. Ahmed Ogle. waxa uu sheegayaa dadka deegaankan in ay tani tahay mas'uuliyad walaalnimo oo ay gudanayaan. Allah'a ne kadar şükretsek az, tarihin ve ümmetin bize yüklediği bu sorumluluğu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. yani taariikhda iyo dareenka ummadeed oo islaamnimada ah mas'uuliyadii ay nooga tagtay ama mas'uuliyadii ayna saartay ayaa waxaan ku dadaalaynaa inaan ka soo baxno mas'uuliyadaas. Saxnuun Axmed, RTN.